kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Elia Benshol wuxuu ahaa sirdoon ka tirsan hay'adda sirdoonka Yuhuudda ee loo yaqaan Mossad. Ereydii ugu dambeeyay uu yiri Elian Benshol ayaa sidaan u qornaa: "Gacaliso xaaskayga, waxaan kaa codsanayaa inaad i cafiso oo aad naftaada ka taxadirto, sidoo kale carruurta aad markaasi ilaaliso. Gacaliso, waad guursan kartaa mar kale si ay carruurteena aabe u yeeshaan oo aadan u cildoonin. Waxaa kaa codsanayaa in aadan ku murugoonin wixii tagay ee la soo dhaafay, haatan ka fikirto waxa hadda taagan iyo mustaqbalka soo socda. Jaceylkaada iyo dhunkashadaada ayaa weli xasuustaa. Waxaa warqadda kuu soo dirayo gacaliyahaaga carruurtaada aabahooda." Waraaqdaas waxay ahayd ama waxay gaartay xafiiska madaxa Mossad, Meir Amit, oo ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu khatarsanaa ee soo maray taliska sare ee sirdoonka Mossad ee dalka Israa'iil. Elia Benshol waxa uu ku dhashay magaalada Alexandria dalka Masar sanadii 1924. Hooyadiis iyo aabihiisa waxaa lagu kala magacaabi jiray Shaul iyo Safiya, kuwaas oo meel cirib iyo jaan ay dhigeen la waayay sanadii 1949. Benshol waxaa la dhashay 2 gabdhood iyo 5 wiil, wuxuuna ka baxay ama uu dhigtay college Faransiiska gacanta ku hayay oo ku yili gudaha dalka Masar. kadibna waxa uu dhigtay jaamacad lagu magacaabo Faaruq ee ku tiil magaalada caasimadda dalka Masar ee Qaahira. Elian Benshol wuxuu ahaa 30 jir qurxoon oo dheer. Sirnoleedkii Elia Benshol waxay ka bilaabatay 67 sano ka hor muddo haatan laga joogo oo ku beegan bishii July sanadii 1954. Benshol aad ayuu u dhaxgalay ama uu saameyn ugu yeeshay dhaqdhaqaaq sirdoon ah oo ka dhisnaa gudaha dalka Masar, taas oo Yuhuudda ay lahaayeen. wuxuu dejin jiray naqshado iyo jidadka ay ku baxsadaan qoysaska Yuhuudda ah, isla markaana wuxuu sameeyay jiray dukumeentiyada Cabdulshidaya ama bugta ah ee been abuurka ah, kuwaas oo ka dhigaya dadkaasi kuwa sharci ah si ay ugu baxsadaan dalka Masar isla markaana ay dib ugu laabtaan dhulka Israa'iil. wuxuu kaloo xubin ka ahaa urur qarsoodi ah oo Yuhuudda lahayd, kaas oo fulin jiray howlgalka loo yaqaan Arabihii Lebron. sanadii 1954 madaxda Israa'iil waxay ka war helay in Ingiriiska uu ka baxayo Masar, isla markaasna waxay ahayd dalka Masar dalka Carabta mid ugu xoog badan, waxaana sidoo kale ay ahayd cadawga koowaad ee Yuhuudda ama dalka Israa'iil. Ingiriiska Masar waxa uu ku lahaa saldhigyo iyo garoomo ciidan oo cirka ah meel u dhow ama daanta kanaalka Suez. Israa'iil baqdin xoogan ay ka qabtay in Masar ay qabsato Israa'iil iyadoo ka aarsanaysa wixii dhaxmaray dagaalkii 1940 dhamaadkeeda oo dalka Israa'iil ay markaas xoog ku qabsaday dhulka reer Falastiin. Ben-Gurion waxa uu ka fariisay shaqadii oo muusan ahayn madaxa dalka Israa'iil. waxaa bedelnin lagu magacaabi jiray Moshe Sharet oo ahaa nin dhexdhexaad ah oo iska jilicsan, waxaana sidoo kale wasiir gaashaandhigga ka ahaa nin lagu magacaabo Pinhas Levon, kaas oo mararka qaarkood awoodda ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Moshe Sharet gacanta ku hay ama daaha gadaashiisa ka maamuli jiray. waxaa kaloo jiray nin kale oo lagu magacaabo Aman Benjamin, kaas oo ahaa madaxa hay'adda Aman oo ah qayb kale oo ka tirsan qaybta wardoonka militariga Israa'iil oo qaab sirdoon u abaabulan, kuwaas oo dil qorsheysan iyo shaqooyin ka sameeyay jiray gudaha dalkaasi Masar. sanadii 1962 ayuu Elia Benshol u wareegay dalka Suuriya, halkaas oo loo diray howlgal xoogan iyo inuu xoogo muhiim ah ka keeno dalka Suuriya, isagoo baxsaday magac ah Kamal Thabit. si wanaagsan ayuu ugu hadli jiray lahjada dalka Suuriyaanka ama dalka reer Suuriya ee afka Carabiga. taliye cusub oo lagu magacaabo gaashaale sare Ahmed Sudani ayaa dalka Suuriya loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi, kaas oo isbedelo xoog ku sameeyay dalkaasi sirdoonkiisa ee qaybihiisa kala duwan. waxaana u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan jaajuuskan Yuhuudka ah ee Elia Benshol. Elia Benshol waxaa lagu daldalay 18 bishii May 1965 fagaaraha Marjax ee magaalada Dimashq ee dalka Suuriya.